socon jirnay ayaa waxay ii qarisay in la qabo wada socod dheer kadib waxaana dhexmaray gogol dhaaf meeshana waxay ahayd Sacuudiga aniga markii waxaan aaday Mareykanka oo aan hadda xaas iyo carruur ku leeyahay muddo kadib iyadii ayaa isoo wacday iguna wargelisay inay uur qaaday habeenkii baashaalka waxaan ku yiri arrimahaas ha igala hadlin uurkana aniga malihi waxaan si ka naxay hadda waxa isoo wacday gabar 17 jir ah oo leh aabahay baa tahay haddii aan waraystayna dadka waxay igu yiraahdeen gabadha waa adiga oo koobi ah macnaha way ku eg tahay marka shiikhow maxaan sameeyaa ma dhiigan ka qaadaa maaniga dhalay maadaama aan meher jirin oo ay khalad aan sameeyay ku dhalatay dambigaas intuu gaarsiisan yahay sideen se uga toobad ula imaada qaabkeese ula dhaqma gabadhaas su'aashaan waxay naga soo gaadhay qolka 114ga وآفوين كان هذا كهل لأن الزنا ذو أيلاد شرعه وروحه كفوا هذا يتراهد ولا كفوا كان واي دباتوي نوع عنه كله تدعي جوابت السؤال شو وحوي جوابها siduu sheegay ninku haweenta markii ay kulmayeen oo xaraan iyo zina ku kulmayeen nin kala qabay soo ma طيب ilmahaas meeshaas ay haweentaasi dhashay ninkii qabay baa iska leh laana nabigu wuxuu yiri alwaladu lilfiraash ilmaha dhashay haweenta la qabana ay dhashay ninkii qabay ee ay gogosha u ahayd baa ilmaha iska leh walilcaahir alhajar ninka zaaniga ana dhagax bulay halaga wada ya bimaana ama hal qadiyo waay wax ilmaha meesha uma yaal ama mehe dhagax baa lagu dilo waay oo la garaaco si loo fasiro marka ilmaha gogosha ku dhashay ninkii baa iska leh waase haduu ka suuroobi karo way haduu ka suuroobi karo maxaan ka wadnaa bimaana markii curfigi caadada la fiiriyo hadii ilmahan uu dhali karo oo mesela nin reerkiisii la joogo la nool waqtiyada is arkeen waqti ku dhow ay is arkeen nin muddo dheer xaaskiisa ka maqnaa 4 sano ka maqnaa haday ilmo keento kama suuroobi karo Soomaa marka waa inuu ka suuroobi karo haduu ka suuroobi karaba ilmahan gogosha iska leh waa kow waa mid labaad ninku hadiiba la yiraahdaba ilmahani biyihiisi baa laga abuuray waana ilma zino abtirkiisa ma qaadanayaan bijmaac ulama isaga abtirka waxa lagu qaataa inaad meher ku dhalato Soomaa iyo xuquuqda aabanimo ilmuhu wuxuu ku qaataa inuu meher ku dhasho meher ku dhalanin sidaas daraadeed ilmaha zinada hooyadii buu ku abtirsadaa waa ina heblaad ee ina hebel ma hooyadii bay isdhaxli abtiyaashi xaqoodu aadi hooyadii waxay dhasho walaalay noqonayaan laakiin ninkan orgiga ah meesha wax ku daadiyay isagu tag tii laga lulay baa laga lulay saas daraadeed waxay tilmaamaysaa dumarku inay aad uga taxadaraan iyadoo zinata haddana tabiicaadka iyaga raacaya waa ka baday ninkan waxoogaagisa intuu kuleylka iska daadiyay dhaqaaqay hawshu iyaga ku hadhay ayada marka loogu abtirin oo ilmuhu xaq u aadaya tana waa qodob wabitaali uma baahna mar haday sidaas tahay uma baahna inaad dhiig ka qaato uma baahna inaad DNA ka qaato ilma aad og tahay inuu zina yahay DNA iyo koobi anu iyagi iyo koobigaagii way qaabka wax laguma sugo shariicaduna abtir iyo nasab kuma sugto gabadhaasi hooyadeed baa dhashay ninkii gogosha lahaa baa dhalay haduu diidayo inkirayana waa inuu li'aan sameeyo waa kii gogosha lahaa gogoshiisa ay ku dhalatay haduu leeyahay anigu ma dhalin kaasi li'aan buu sameeyay ilmaha uu iska anfinaya haduu li'aan tami waayo ilmuhu nasabkiisa iyo abtirkiisa uu qaadanaya isaga dhalay kan Soomaaha asagu ilmaha shaqo isku meelaha maxaan sameeyaa hadaadun lillahi isaga caawinayso lillahi hadaadun ruux bini aadan oo dhiban aad maxay u caawinaysa meesheeda waay laakiin wax kale oo idinka dhaxeeyay ma uu jiro maxaan sameeyaa
dembi weyn baad gashay toobad keen laba dembi baad gashay ka horta inaad zinaysatay waa faaxisho mar labaadna nin gogoshiisa walaalka oo muslima inaad wasakhaysayna waa dembi labaad sooma oo xataa qaabu kaaga cafin karo aanan garanaynin hadda ilaan xaq bini aadan sooma gogosha nin baa lahaa gurigiisa waad wasakhaysay haddaad gurigiisa iyo gogoshiisa wasakhaysay sida saxdaa waxay ahayd intaad noosha inaad u tagto tiraadi cafi laakiin adiga miyaad tegi kartaa dhigi kartaa nin miyaad ku dhigi kartaa reerkaagiiba ya reerkaagii baan ku khaldamayno iskagii cafi miyaad dhigi kartaa hawshaasi waa howlun aakhara jirta waa xuquuq ilaahay xaggiisa jirta waxaase kula gudboon inaad towbad keento oo si dhaba ilaahay ugu soo noqoto tabaaraka wa tacaala wixii meesha ka dhashay iyo ilmahaasna xukunkiisu waa sidaas wabillahi tawfiiq